todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in Rodri uu doonayo inuu ka tago kooxdiisa Manchester City xilligaasna waxaa muuqday inuu ku biiri doono kooxda Real Madrid laakiin dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya inuu isbedel xiiso la dhacay oo waxay warar ku sheegayaan inuu haatan ku biirayo kooxda reer Catalonia ee Barcelona kaasna waxaa loogu yeeray saxiix waaliya oo dunida kubadda cagtu aysan aqbali karin dhamaanteen waxaynu aragnay sida xulka qaranka Spain ay u awood badnaayeen koobkii adduunka ay ku guuleysteen sanadkan 2026 Rodrina waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooydoodii ugu fiicnaa xitaa waxa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu fiicnaa tartanka taasina waxay muujisay sida uu muhiim ugu ahaa xulka qarankiisa dhaawacii soo gaaray sanadkii 2024 dadka qaarkood waxay rumaysteen inuu yahay kii soo afjari lahaa xirfadiisa waxa muddo laba xil ciyaareed la qaatay kooxdiisa Manchester City isagoo la dhibaatoonayay inuu dib ugu soo laabto awoodiisii hore laakiin sidii uu Pep Guardiola hore u yiri Rodriga saxda waxaad arki doontaan koobka adduunka dib ayuu u soo laabtay si weyn waxa uga dhaxiftiibay koobka dunida waxa dunida markale la xasuusiyay inuu yahay ninkii ku guuleystay Ballon d'Or 2024 balse xulkii Spain ay ku guuleystay koobka adduunka dadka waxa uga dhex muuqanayay Barcelona safka koobaad ee xulka qaranka Spain mar walba waxa ku jiray Kubarsi Badri Dani Olmo iyo Lamine Yamal kadibna Ferran Torres ayaa kursiga kaydka ka soo kacayay halka Gafina uu door weyn u dhiirigelina ku lahaa xulka qaranka Barcelona si dhab ah ay uga dhex muuqatay xulkaasi balse intaas oo kaliya ma ahayn qaab ciyaareedkooda ayaa xitaa ahaa mid matalaya falsafada Barcelona waxay jecel yihiin inay kubadda haystaan inay qadka dhexe xakameeyaan isla markaana go'aamiyaan jihada iyo xawaaraha ciyaarta taasina waa falsafada Barcelona si aad taa u gaartana waa inaad qadka dhexe ku haysataa ciyaartooy heer sare ah taariikh ahaanna taasi waa hal arrin oo mar walba Barcelona ay caan ku ahayd mararka qaarkood ciyaartooy ay ka soo saareen akaademiyadooda sida Xavi Iniesta Busquets iyo Guardiola ayaa halkaas joogay mararka qaarkoodna kuwa ay suuqa ka soo iibsadeen oo ay kamid ahaayeen Figo Maradona iyo Johan Cruyff kooxdu waxay mar walba garoonka dhexdiisa ku haysatay ciyaartooy farsamo ahaan heer sare ah oo ciyaarta maamulaya Barcelona waa koox taariikh ahaan mudnaanta siisa farsamada xakameynta iyo aragtida ciyaarta halkii ay xoog saari lahayd awoodda jireed oo kaliya arrintaasna si cad ayaa looga arki karaa nooca ciyaartooy ay mar walba u adeegsadaan qadka dhexe xitaa maanta falsafadaasi weli waa ay sii jirtaa iyadoo Hansi Flick laga yaabo inuu waxyaalo badan bedelay haddana falsafada qadka dhexe waa meel uusan weli ka guurin kooxdu weli waxay haysataa qaar ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe ugu wanaagsan dunida qaar ka mid ah waxay ka soo baxeen akademiyada La Masia sida Olmo, Gavi, Bernal iyo Fermin Lopez qaar kalena kooxdu waa ay soo iibsatay sida Pedri iyo Frankie de Jong jil kasta oo Barcelona ah iyo nooc kasta oo falsafada qadka dhexe ee Barcelona mar walba waa mid muhiim ah balse ma aha qadka dhexe oo kaliya ee waxaynu ka hadlaynaa burburiyaha qadka dhexe dabcan ciyaartooyda qadka dhexe ee dhinaca weerar ka caawiya waxay leeyihiin door muhiim ah taariikhda Barcelona waana la siiyaa qadarintooda balse ciyaartooyda taageerayaasha Barcelona ay sida gaarka u xiiseeyaan waa kuwa xakameeya ciyaarta iyo xawaaraheeda waxaana loogu yeeraa waa motorka dhaqaajiya qadka dhexe xakameeyana xawaaraha ciyaarta ee kooxda ka soo horjeeda bal waxaad xasuusataa Pep Guardiola Xavi Hernandez Sergio Busquets iyo Pedri haatan haddaba kubadda cagta ee waqtigan burburiyaha qadka dhexe ee xakameeya ciyaarta midka ugu fiican waa Rodri isagana waxa ku sii xiga waa Pedri kadibna waxaad sheegi kartaa ciyaartooy kale sida Vitinha iyo Declan Rice Barcelona xilli horeba waa mid ka mid ah kooxaha qadka dhexe ugu awoodda badan oo Pedri iyo De Jong ayaa maamulaya haddii ay Rodri ku soo darsadaanna waxay noqon karaan koox ay adag tahay gabi ahaanba in la tartamo markaasna waxay haysan doonaan labada nin ee qadka dhexe xakameyntiisa ugu fiican dunida oo dhan waana ay adkaan doontaa in koox kale ay qadka dhexe kula lulanta kooxda Barcelona dabcan waxaynu isla ognahay in mid ka mid ah meelaha ay Barcelona daciifka ka ahayd qadka dhexe ay ahayd awood jireed xakameynta ciyaarta iyo dejinta xawaaraheedu qadka dhexe Barcelona dhib kuma ahayn laakiin mararka qaarkood waxay tabayeen xoogga iyo tamarta looga baahan yahay ciyaaryahan heer sare ah oo qadka dhexe maamulaya gaar ahaan kulamada adag ee fisikal ahaan loogu dagaalamo qadka dhexe sababtoo ah xidigahooda qadka dhexe ma ahayn kuwa fisikal ahaan xooggan arrintanina waxay si gaar ah u muuqatay markii Gavi uu dhaawacmay labadii xil ciyaareed ee ugu dambeeyay taageerayaasha iyo qaar ka mid ah falanqeeyaashuna waxay xuseen in tani ay ahayd sababta ay Barcelona horyaalka ugu raaxaysanaysay laakiin dhibaato ay ula kulmi jirtay markii la gaaro marxaladaha kala baxa ee Champions League qadkooda dhexe mararka qaarkood way awoodi waayeen inay la jaan qaadaan xawaaraha xoogga iyo dagaalka jireed ee kooxaha kale ay kala kulmayaan taasina waxay keentay inay lumiyaan kubadaha 50-50ga ee ku loolamaan oo dhan balse Rodri kaligiis ayaa xallin kara dhibaatadaasi Rodri waa ciyaaryahan qadka dhexe ah oo si buuxda u dhameystiran baasaskiisa farsamadiisa iyo awoodiisa uu ciyaarta ku xakameyn karo shaki kuma jiro laakiin sidoo kale waxa muhiim ah inaynu xusno awoodiisa jireed waa ciyaaryahan awood badan dagaalyahana isla markaana aad u adag marka uu kubadda difaacanayo waxa uu leeyahay awood naadir ah oo uu kaligiis ku joojin karo weerarka kooxda ka soo horjeeda isla markaana uu markiiba ku abuuri karo fursad kale oo kooxdiisa taariikh ahaan safafkii ugu waaweynaa ee taariikhda kubadda cagta soo maray waxay u baahnayeen laba nooc oo ciyaartooy qaddex ah waa mid burburiye ah iyo mid xakameeya oo fursadaha sameeya Gattuso iyo Pirlo waa tusaalaha ugu wanaagsan ee arrintan muujinaya
balse Rodri waa ciyaaryahan kaligiis qaban kara labadaasi doorba waliba si heer sare ah marka ciyaaryahan noocaasi aad ku darsato qadkaaga dhexe oo xilli horeba ahaa mid wanaagsan arrintu waxay noqonaysaa mid aan waxba laga qaban karin waana inaad maskaxda ku haysaa weerarka Barcelona maalinta ka dambaysa waa uu sii xoogaysanaya xilli horeba waxay haysteen Lamine Yamal iyo Rafinha oo labaduba ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dunida kubadda cagta haddana waxay la soo wareegeen Karim Adeyemi iyo Anthony Gordon wali ma uusan dhameystirmin qorshahooda suuqa kala iibsiga wararku waxay sheegayaan inay doonayaan inay keenaan hal ciyaaryahan oo weerarka ah hor inta uusan suuqu xirmin taasina waxay u muuqataa koox dhab ahaantii noqon karta mid aan la joojin karin marka aad si gaar ah u eegto qaabka Hansi Flick uu jecel yahay inuu ciyaaro waxaad fahmi kartaa sababta uu Rodri u noqon karo hub halis badan marka aad jeceshahay kooxdaadu ay ku ciyaarto garoonka qaybta kooxda kale waxaa muhiim ah inaad haysato ciyaaryahan qadaxa ah oo akhriya ciyaarta isla markaana joojin kara ka hor inta aysan khatartu bilaaban kaasina waa Rodri dabcan marka aad sidaas u ciyaarto mararka qaarkood waxaa dhici karta in kooxdaada laga qabto hal baas oo kaliya kaasoo ku keena cawaaqib xumo balse qadaxa oo sida Rodri oo kale ah waxa uu saameyn weyn ku yeelan karaa inay yaraadaan dhacdooyinka noocaas ah sababtoo ah ciyaar akhrintiisa ayaa aad u weyn waxaana uu inta badan joogaa meesha saxda ah waqtiga saxda ah dadka qaarkoodna waxay oran karaan dhaawacyada Rodri waxay sababi karaan inuu Barcelona u noqon qofka ay doonayaan laakiin maadaama ay Badri haystaan ma noqon doonaan kuwa si xad ah ugu tiirsanaada Rodri waqtiga runta ay u baahan doonaanna waa wareegyada kala baxa ee Champions League haddii uu Rodri awood u yeesho inuu kulamadaasi taam u noqdana Barcelona waa hubaal xilligaasi way ku faa'iidi doontaa walaaca kalena waxa uu yahay ma isku haboon yihiin inay wada ciyaaraan isaga iyo Badri xulka qaranka Spain ayay si cad uga muuqatay in labadan ciyaaryahan aysan si fiican uga haboonaan inay garoonka ku wada jiraan sababtoo ah waxay joogaan meel iska agdhow dabcan taasina Barcelona waxay ku noqon kartaa dhibaato weyn balse waxa la leeyahay tani waxay noqon kartaa dhibaato la xalin karo maadaama labadoodu ay toddobaadyo badan si joogto ah wada ciyaari karaan halkii awal ay dhowrkii biloodba hal mar isku arki jireen xulka qaranka labadan ciyaaryahan waa kuwa heer caalami ah waxaana ay leeyihiin faham dheer oo ku saabsan ciyaarta kubadda cagta sidaa darteedna si weyn ayaa lagu kalsoon yahay inay awoodi doonaan inay qadka dhexe ku wada noolaadaan tusaale ahaan Xavi Hernandez Andres Iniesta iyo Sergio Busquets waxay lahaayeen waxyaalo badan oo ay isaga mid yihiin laakiin waxay lahaayeen habab kale oo ay isku fahmaan kuna wada ciyaaraan iyagoo ugu dambeyn noqday saddexdii ugu fiicneed ee qadka ku midooda taariikhda kubadda cagta sidaa daraadeedna si weyn ayaa lagu kalsoon yahay in Badri iyo Rodri ay ku midoobi karaan qadka dhexe ee Barcelona isna fahmi karaan taasina waxaa cadeyn ugu filan muuqaalo yar oo ka soo baxay finalkii koobka adduunka Badri kulankaasi kuma uusan bilaaban line-up-ka koobaad laakiin waxaa la soo galiyay ciyaarta daqiiqadii 62 waxayna ahayd markii Spain ay si dhabacdaadiska u saartay xulka Argentina Rodri iyo Badri waxay garoonka ku wada jireen 37 daqiiqo mana aysan jirin hal mar oo midna midka kale uu caqabad ku noqday booskiisa si sax ah ay u wada shaqeynayeen xitaa waxa la oran karaa Spain waa ay si wanaagsanaatay markii labadoodu ay garoonka soo wada galeen Spain waxay ahayd koox ku guuleysatay qadka dhexe inta ay ciyaaraysay koobka adduunka isla markaana kooxaha kale u diidaysa fursado ay goolal ku dhaliyaan qofka sida buuxda u maamulayay qadka dhexana waxa uu ahaa Rodri kooxaha jirahan aad u xoogan xitaa Faransa iyo Argentina ay ka mid yihiin Rodri waxa uu ahaa ciyaaryahan aysan la tartami karin haddii awooddaasi la geeyay Barcelona markaas waxay noqon kartaa koox aan la tartami karin waxa laga yaabaa inay tani tahay waxa Barcelona ay u baahan tahay si ay mar kale gacanta ugu soo dhigto koobka dhagaha weyn ee Champions League dunida inteeda kalena ma rajaynaysa inay taasi dhacdo haddii ay sidaasi sameeyaan Barcelona waxay noqon kartaa koox gabi ahaanba aan la joojin karin haddana waxa la soo gaaray xilliga aan arki lahayn aragtidiina ma kula tahay inuu Rodri ka dhigi karo kooxda Barcelona mid gabi ahaanba aan la joojin karin adiga se maxay kula muuqataa ma ku soo bixi doonaa falsafada Barcelona kooxdeesa jeclaan lahayd inuu ciyaaro Real Madrid mise Barcelona fikirkaaga ugu wada qaybta commentiga haddii aad wali ka mid noqon asxaabteennana soo dhawo muuqaalkana sii faafi waad mahadsantahay